السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي هالميل كستو aad joogtaan kasoo dhawaada waa markale yasmiyaasiin haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka nagu caawi haddii aad horey nala joogtana like-ta nagu ilaawin si dad badan ay u gaaraan muuqaalada aynu soo gudbino qaybta hoose noogu reebo wixii su-aale ay qabtaan. maanta waxaynu halkaan uga hadli doonaa waxaa loo yaqaano xanuunka loo yaqaano polio ama afka Soomaaliya lagu dhaho dabeesha. haddaba dabeeshu waxay ka mid tahay xanuunada aadka u dilooda caruurta Soomaaliyeed gaar ahaan markii ay aadka u yaryihiin. waa xanuun soo ku bilaaban kara ilmaha markii uu yaryahay. haddaba dabeeshu waxay ka mid tahay 6 cudur ee loo yaqaano cudurrada dilaaga ah ama 6 killer diseases loo yaqaano. cudurka dabeesha ama poliomyelitis waa cudur naafanimo ama dhimasho keena oo nafta halis geliya oo sababa virus loo yaqaano waxaa sababa virus loo yaqaano poliovirus kaasoo ku dhici kara qofka laf dhabarkiisa taasoo keento qofka inuu curyaanimo maaragtay ay ku dhacdo oo qofka u curyaamo. sidaas daraadeed waxaa jiro tallaal looga hortago oo loo yaqaano polio. talaalkaasi waa muhiim in uu ilmo kasta qaato marka uu yaryahay oo 40-ka ka baxo ama hooyadu markay umusha ka baxdo 40-ka ka baxdo in ilmahaasi lagu bilaabo. qiyaasta talaalka dabeesha cunuga ugu bilow 40 baxa ama hooyada markay ay ka baxdo umusha waxaadna siin kartaa talaalka magaciisa loo yaqaano talaalka nolosha ugu horeysa waxaan loo yaqaanaa talaalkaas polio 0. waxaa jira mid la dhaho polio 1 polio 2 iyo polio 0. so qiyaas dhan 2 dhibcood waxaadna ka siin kartaa afka. haddaba waxaad siinaysaa 3 jeer baad siinaysaa talaalkan oo 3daas jeer mid kasta ay u dhaxayso bilbil ay u dhaxayso. malahan wax yeelo ah talaalkan iyo haddii uu cunuga ku shumo talaalkii si fiican umuusan shaqayn waayo waxaa la rabaa ilmaha markuu qaado talaalkan uusan shumin. hadduu ilmaha shumo macnaheedu waxa weeye talaalkii ilmaha si fiican jirkiisii uma gelin ama si khaldan baa loo siiyey oo qaab khaldan baa loo siiyey waayo noolaha keena shubanka ayaa hakiya in uu maaragtay keeno viruskan. haddaba maxaa la sameyn karaa cunugii haddii la siiyo talaalkii oo ku shumo? taasi waa calaamad ku tusinaysa in ilmihii talaalkii uusan shaqeynayn uusan waxba ka faa'iideyn in lagu celiyo maahane. haddaba haddii aragtid ilmaha inaad siisay talaalkii poliyada oo laakiin uu shumayo waa inaad talaalkii aad ku celisaa. masalan dhibicda koowaad markaasi soo kale buu ku shumay, dhibicda labaad baa u wadaysaa iyo tan saddexaad hadhow markuu dhamaysto haddana dib baa ugu soo bilaabaysaa si mar labaad uu shaqeeyo. haddaba si kasta ha ahaatee ilmaha waa siinaysaa talaalka dabeesha laakiin waad ku celinaysaa qiyaastii la siinayay ee saxda ahayd baad ku celinaysaa mar labaad. qiyaas kale oo zaa'id ah ama waad ugu dari kartaa adiga marka uu dhamaadana waad soo bilaabi kartaa inta uu wadana qiyaas zaa'idana waad siin kartaa. ama say dadka qaar ay waxay sameeyaan dhakhaatiirta qaar waxay sameeyaan markii ilmaha uu ku shumo oo dhibicda koowaad uu ku shumo dhibicda labaad afka laga siin uu ku shumo waxay sameeyaan in ay dhibcaha intii loogu talagalay in ka badan ay siiyaan si shumanka loo joojiyo. saaxiibayaal waa maasantihiin qaybtii ku saabsaneed maxaaratay qaybta talaalada ama immunizationka xanuunka poliyada intaas ku egyahay. wixii su-aala qaybta commentiga waad noogu reebi kartaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.